August 26th of 2022, it was revealed that Min Jae and Taehyun have been taken into custody because of suspected illegal substance use. maxay tahay sababta booliiska gobolka Yeongsang ee caasimadda South Korea magaalada Seoul ugu dhagan yihiin fanaanka weynaa ee gobolka kooxaha Wineries ee South Band ninka lagu magacaabo Nam Tae-hyung haddii ay soo daaweysay gabadhii uu jeclaa iyadoo tilmaamtay weliba inuu jiro dilay hadda ka hor waxaa ku kaliifay haddana inay tidhaahdo waan xanaaqsanaa waqtiga hadalkayguna muu ahayn mid siiriyasa been mise caga juglayn maxaadse ku tilmaami lahayd shiliishta irbadda ay soo gelistay Instagram-keeda ee ay leedahay waxaan hayaa caddayntaada tan oo gelisay baxarkii ugu weynaa abid ninka la yidhaahdo Master Nam Tae-hyung Suli dhimashadeedii iyo wadna xanuunka Nam Tae-hyung muxuu yahay waxa ka dhaxayn kara ee uu tilmaamay isagu ma runba inuu rabay inuu isdaldalo hadda ka hor Nam Tae-hyung maxaase ku kaliifay inuu ka tago kooxdiisii hore ee Wineries iyo shirkadda YG Entertainment ee kooxaha Blackpink samaystayna gebi ahaanba isaga kooxo khaasa oo uu leeyahay intaas iyo qodobo kale oo update ah aadna u xiiso badan ayaan ku eegaynaa muuqaalkiina maanta balse ka hor waxaan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan aad ula falgashaan markasta muuqaaladeenna idinkoo la garanaya subscribe dhahayo ku soo biiraya YouTube-keena Baldahab TV waxaan idin leeyahay waan idin ogahay midaasi mahadsanidin saaxiibayaal. On the following day, Nam Tae-hyun started a new live broadcast where inta aynaan u gelin sababta weyn ee booliiska Seoul u haystaan fanaankan aan isweydiino waa kuma Nam Tae-hyung maxayse tahay xaqiiqadiisu ma aaminaysid fanaankan halganka uu soo maray si uu guulaysto waa qiso wax ku ool ah oo aan la murugooday runtii waxaanan ka faa'iidaynaa macnaha samirka iyo guusho inaan ahayn wax sahla fudaydna lagu helo fanaankan magaciisu waa Nam Tae-hyung wuxuu dhashay 10kii bishii May sanadii 1994 ma aaminaysid hibooyinka iyo talentska kala duwan ee uu leeyahay waa hobal iyo heesaa cajiib ah musician professional ku atumista gaar ahaan waxa loo yaqaano gitaarka qoraheeseed ama awaan iyo weliba jilaab film sameeyay actora kadib markii uu sameeyay filimka taxanaha ee Koreanka ee loo yaqaano Midnight oo aad loola dhacay qabjilinkiisa uu ku soo bandhigay intii uu matalay filimkaas wuxuu ka soo jeeday family aan magac lahayn adduun buurana haysan bilowgii intii aanu isagu noqon qofka uu yahay iyo xidiga iyo hobalka caanka ninka loo yaqaano Master Nam Tae-hyung wuxuu yidhi maruu waraysi bixinayay waxaan lahaa rajo marun inaan noqdo fanaan adduunka laga yaqaano waxaanan ku bixin jiray midaasi awoodayda oo dhan sidaan u rumayn lahaa riyada haddaba tartamo kala duwan oo galay shirkadaha caanka ee YG Entertainment oo ah shirkadda iskale kooxaha gabdhaha ee Blackpink ayaa soo qaadatay iyadoo la dhacday midhaha heesaha uu qoray muusikada aqoonta uu leeyahay garaacisteeda iyo weliba codkiisa oo aan waxba laga qaban karin waxaana isla durbadiiba ku soo dareen kooxda Wineries oo ay hadda ka hor samaysay shirkadda YG Entertainment sanadii 2013 u fiirso marka uu ku soo biiriyay Wineries waxay sanadii 2014 isla markiibana Nam Tae-hyung wuxuu ku faafiyay awoodiisii faneed iyo talentiskiisii kala duwanaa uu lahaa waxaana loo magacaabay heesaaga ugu awoodda badan isla markiiba kooxda Wineries waxaanu qoray 3 ka mid ah first albumkoodii ugu horreeyay ee si ay ku soo bandhigeen oo ah heesta Bad Tonight iyo weliba heesta kale loo yaqaano Confusion ee ay qaadeen saddexdaba kooxda loo yaqaano Wineries kuwaas oo keenay kooxdu inay si dhaqso ah u qaraxdo loogana soo yeedho kaalmaha ugu sarreeya abaalmarinaha Billboard chart tan oo caddayn u ahayd siduu muhiim ugu ahaa Wineries iyo shirkadda YG Entertainment labadaba ninka leeyahay Nam Tae-hyung Winner has broken their own first week sales records and has enjoyed continued success. Former member Taehyun nasiib xumo iyagoo maraya halkii ugu sarreysay noqdayna koox awood leh gebi ahaan caalamka oo dhan laga garanayo loogana soo yeedhay kaalmaha ugu sarreeya shirkadaha Billboard iyo qiimaynta heesaha kana galay kaalmaha ugu sarreeya ayaa Nam Tae-hyung oo ah xubinta ugu muhiimsan markaasi kooxda Wineries iyo xidig lagama maarmaan ah uu sheegay inuu dareemayo xaalad caafimaad oo daran sida wadnuhu aanu ka hisi karin xiiqis iyo daal badan oo ku soo kordhay waa sida ay kaga warbixisay shirkadda YG Entertainment kadib markii la weydiiyey sababaha uga maqan yahay qaybo ka mid ah heesooda iyo bandhigyada ay qabteen waqtigaas balse xaqiiqadu sidii loo fahmay noqotana kama dambaystii ma ay ahayn sida
waxayna ahayd inuu jabiyey sharciyada u yaalla shirkadda YG oo ah inaanay kooxdu samayn kareen xidhiidh ama relationship ama waxa loo yaqaano shukaansi bixitaano kalaabka iyo cawaysyo aanay fasax u haysan waxaana loo arkay marar badan isagoo la socda gabadh Korean ah oo la yiraahdo Seo Min-jae taasoo ah midda hadda dacwadda ku soo ogtay booliiskana ku wareejisay arrintiisa ugu dambayna Nam Tae-yong wuxuu yidhaahdo wadna ayaa xanuunaya shirkaduna dhacda arrimo caafimaad ayuu ku maqan yahay bishii November sanadii 2016 ayaa waxaa soo baxday warqad tilmaamaysa inuu isaga tegay gabi ahaana xadhigga u jiray kooxdii Wineries iyo shirkadda YG labadaba waxaana warqadan oo ka soo baxday page-ka saxda ah ee shirkadda YG Entertainment ku qorayd kadib markii aan wada hadal iyo discussion la yeelanay Tae-yong wuxuu noo sheegay inaanu sii wadi karin shaqada iyo activitieska kooxda waxaana la kansalay heshiiskiisii uu kula jiray kooxda Wineries November 18 laba casho kadib markii la cadeeyay gabi ahaanba inuu isaga baxay tiimka. An executive from YG stated that he went through lengthy discussions with Taehyun and both parties concluded that it would be Tae-yong qudhiisuna wuxuu si dhab u cadaystay gabadhii lagu xamanayay Seo Min-jae kadib markii uu kansalay heshiiskii kooxda Wineries ee uu isaga tegay waayo shuruucda u taalla shirkadda ayaa gabi ahaanba ka soo horjeeday arrinkaasi sidaan ka soo xigtay ilo lagu kalsoon yahay xogahana si dhab u soo gudbiya balse markii uu si dhab u kansalay heshiiskii uu kula jiray YG Entertainment ayuu sidoo doono u muujiyay dareenka kala dhaxaya gabadhii uu jeclaaday ee Seo Min-jae waxaanu bixiyay waraysi uu kaga hadlayo sababtii uga tegay kooxda iyo shirkadda labadaba waxaanu yidhi waxaan dareemay culays badan iyo xasilooni la'aan run ahaantii shirkaddu ma ay xumayn waxaanan ogaa inay macno badan leedahay aniga kooxda iyo agensiga labaduba haddana sidaasi oo ay tahay waan daalay waxaad la kulmaysaa sharciye iyo xeerar adigoo dhan ka hor imanaya maamul adag iyo ilaalo markasta ku daba joogta waxaanan odhan karaa waa sababtaan u doortay inaanay cidina maamuleen balse waxaanu rajaynayaa guul oo dhan kooxdaydii hore iyo shirkadda YG Entertainment labadaba. She claimed that she had made the original posts after arguing with Taehyun and that she had taken too much medication. waxaanu markan sameeyey arrinka cajiibka iyadoo la isleeyahay fankiisi waa u dhammaatay Tae-yong muddana uu ka maqan yahay saaxadda heesaha iyo fanka dhammaadkii sanadii 2017 ku beegnaantii 2018 ayuu aasaasay koox cusub oo uu isagu gacantiisa ku dhisay lana yidhaahdo South Club oo ka kooban isaga iyo 3 wiil oo kale waxaanay soo qaadeen markiiba heestooda caan baxday ee la magac baxday Outcast si la mid ah heesaha ay ka midka yihiin Dirty House Rockstar oo u sahashay saaxadda caalamka iyo fanka inuu mar kale ka soo muuqdo dibna ugu soo noqdo wiilkii jacaylku dib u dhigay muddo badan kadib isagoo update ah waatana kooxda cusub oo la yidhaahdo South Club. haddaba waa maxay waxa helay Nam Tae-yong iyo sababta booliisku ay ugu hayaan baaritaanka uguna dhegan yihiin ilaa hadda. In a live broadcast, apologizing for fans and people around him since he 20 bishii August sanada 2022 laba bilood ka hor ayay ahayd markii Seo Min-jae oo ah gabadha ay xiriirka lahaayeen Nam Tae-yong ay ku soo eedaysay inuu isticmaalay sun halisa iyo mukhaadaraad sidoo kalena dilay oo nabarro u geystay iyadoo boostigan soo dhigtay barteeda Instagram-ka oo ay ku xidhan yihiin kumanaan kun oo qof oo taageerayaal ah oo boostigana gebi ahaanba u noqday viral waayo waxay sheegtay arrinka naxdinta leh taasoo qasabtay attention-ka dadka gebi ahaanba inay soo jeediso waxaanse odhan karnaa midaasi waxay ahayd sahlo waxaase kasii dareed kadib marka ay soo dhigtay boost kale oo ay leedahay Nam Tae-yong wuxuu haystaa Philippine yab weliba waxay tilmaamaysaa inay qolkeeda taallo irbadu ku isticmaalaya bahasha halista ah una ku ilaaway qolkeeda room haddaba maxay tahay Philippine maxayse tahay sababta ugu ilaaway qolkeeda irbadan ay ka hadlayso muxuuse noqon karaa cadaawadda intaasee laga ka dhaxaysa lamaanihii jeclaa ilaa 2018 ereyga Dojae gebi ahaanba inay kusoo dacwayso booliiska dacwadiisana ay bannaanka soo dhigto. While this specific selfie has already been deleted, Min-jae uploaded several other pictures of herself and Taehyun, and each time she said Jae sunta ay ku eedaynaysa ninkan leeyahay Nam Tae-yong ayna leedahay irbadda ayuu kaga tegay gurigayga iyo qolkayga waxaa leedahay magaceeda Philippine
waana sun buda ah oo ay isticmaalaan dadka mukhaadaraadka caadaysay jidhkooda ay ku mudaan amaba aysan ka saaraan waxaa lagu shubaa weel budada kadibna waa ay qasayaan waxaana lagu qaadaa shiliish ama irbad kadibna xididka gacanta ayay isaga mudaan bahashan oo la qasay halka kuwa kalena sanka ay saaraan si ay u dareemaan sakhradda budadan halista ah waana tan tusaale ahaan si aad ila fahanto Filipinto waxay tahay nin Amerikaan oo lagu qabtay lagana sheekeynay isticmaalkeeda iyo sida uu isticmaalo. It means the promise of a normal life for people like Jacob, just maybe not a drug-free one. Zibble says addicts like him markiiba booliiska gobolka Yongsan oo istimaada caasimadda dalka South Korea ee lagu magacaabo Seoul ayaa kiiska gacanta ku dhigay si ay u xaliyaan sheekada gabadha. Fanaankana waxa uu galay khaladaad weyn ee xadgudub aad u daran waxaana walwal ku keentay midaasi taageerayaasha kooxda South Club ee fanaskiisii maadaama lagu tilmaamay khatarta aadka u daran taasoo u mari karo 10 sano oo xadhiga iyo in ka badan. arrinta si cajiibka ah ee dadkoo dhan ay la yaabeen ayaa waxay tahay social mediaha gabadhii soo gelisay xogtan iyo Instagram-keeda ee la odhan jiray Chai waxay markiiba saartay oo dhalidgaraysay sawirradii iyo qoraalkii waxaanay soo gelisay hadal ah waxaan ka sheegay Ben Taeyong waan cadhaysnaa waayo waan islaynay waxaana igu dhacay nabaro ismaan kantarooli karayn sidaas darteeda ayaanu sheegay beenta intaasi leeg balse waxba kama jiraan af kala qaad iyo cajiib sidoo kale waxay isna soo geliyeen Instagram-kiisa ninka la yiraahdo Nam Taeyong waxay ahayd sheeko jacayl iyo lamaano isku dhacay waan ka raali gelinayaa dhacdada buuqa dhalisay dadka iyo faniska waxaan isticmaalay kiniini badan sababo la xiriira stress iyo madax xanuun sayidoo aan dareemayay waqtigaasi waxaanay sababtay inaan xaaladda ka baxo sidoo kale inaan la dagaalamo Chai kuna dhufta nabaro balse anyway si kastoo ay wax u dhaceen waxaan idin leeyahay sorry waan idinka raali gelinayaa balse midaasi lagama dhagaysan waxaana socda baaritaankii adkaasi loo mariyo abaalmarinta dambiga lagu eedeeyay fanaankan waxaana loo xisaaray dambi baadhayaal khaas ah iyo ciidamo dharcada si gabi ahaanba loo meel mariyo kiiskan. After leaving Winner, Nam Taehyun has stayed in the shadows until very recently. Over the past few days, some weird ma aaminaysaa hadda ka hor haddii aan ku idhaahdo fanaanka loo yaqaano Nam Taeyong waxa uu isticmaalay daawo badan isagoo damacsan inuu isdilo kadib markii ay isdildashay oo ay istishay fanaanadii caanka ahayd ee lagu magacaabi jiray Sole oo ay ahaayeen saaxiibo dhow sida la tilmaamay waxaanuu yidhi walwalka dhimashada saaxiibtay waxaan dareemay problem badan stress aan caadi ahayn taasoo igu kaliftay inaan ku fakaro inaan isdilo balse dadka qaar ayaa aaminsan ninka la yiraahdo Nam Taeyong inuu xataa markan oo 2019 dhimashadii Sole isticmaalaya mukhaadaraadkan lagu eedeynayo hadda kuna haystaan booliisku. haddaba daawade sidee ayaad u aragtaa sheekadan waalan iyo qaabka ay u socoto gabadhan haddiiba ay markii hore ku soo eedaysay sheekadan maxaa ku kalifay mar kale inay kansasho dacwadda tirahdana waan xanaaqsanaa iyo wax la mida mase kula tahay booliisku inay ka dhagaysanayaan waxaasi dambigana halkaa ku dhammaan karo. intaas ayaanu ku safmeeranaa muuqaalkeena maanta oon uga hadlaynay dhacdada iyo sheekada qaabka daran ee lagu haysto Nam Taeyong waxaan idinla wadaagi doonaa gabi ahaanba xogaha update-ka sheekooyinka cusub iyo barnaamijyada aanu arkay inay xiise gaar leeyihiin ee ku saabsan dhanka iyo K-pop-ka. fadlan haylawin muuqaalka inaad like garayso subscribe si aad u noqoto daawadaha koobaad ee muuqaalkeena xiga hoosna igu reeb kilibka ama fiidiyowga iyo muuqaalka aad jeceshahay inaan ku xigsiino.